السلام عليكم داوديال سو دواada welcome guys السلام عليكم وجميلة soo dhawaada barnaamijka qaxootigaan rabaa inaan idinla socodsiiya haddii alla idmo marka dadka cabaar sugaaya haddii kale hadhow waxaa la leeyahay ku celi see tihiin suulkayga hala yaabinaya albaabaan isaga dhuftay then it looks like that it looks horrible dadkan wax yar sugaynaa little bit then online-ka inta ka gelinayaa ka bacdiya insha allah waa idin sharaxayaa ayadoo dhammaystiran haddii alla idmo saa iiga barateen so wax yar aan dadka sugno haddii ilaaha idmo shahaaga soo qaado qofkaa leynka soo gelin lahayd soo geli wax badanaa caawal iga sugaayay marka wana si fiican inaa idinkugu sharaxo haddii alla idmo marka soo dhawaada waa bilaabaya marka qofkii gadaal kasoo galaya ha kasoo galo shalay ayaa waxaa lagu dhawaaqay in dadka citizenka ama wadanka deganaanshihiisa haystoo kaleeto oo shacabka caadiga shacabka inay sponsor gareyn karaan qaxootiga ama ay damaano qaadi karaan qaxootiga that's what sponsorship is marka wax yar aan rabaa inaan sharaxo little bit say dadka u fahmaan su-aala aada la igu wareeriyey maanta literally dadaa isoo wacin 7-6 years a maanta isoo waceen marka qof walba maadaama uu raadinayo sida wax u dhacayaan sida yihiin saa iiga barateenba iwana inaan idin sharaxo haddii alla idmo oo idinkala falanqeeyo si u kala baxayso anoon waxa isukiin kor saarin waxaa barnaamijkan laba hay-adood ayaa isgarab istaagi doonto dowladda maraykanka ah wasaaradda arrimaha dibadda iyo midda caafimaadka iyo adeega bulshada barnaamijkan sidiisa marka qaxootiga intiisa badan barnaamijka noocaana waxaa lasoo saaray 1980kii markii lasoo saaray intiisa badan waxaa ka shaqayn jiray non-profitka oo hay-adaha dibudejinta ayaa ka shaqayn jiray sida kaniisadaha oo kaleeto dadka hay-adaha dadka xuquuqda u doodoo kaleeto ayaa ka shaqayn jiray marka barnaamijkan ah inay shacabku damaano qaadaan qof qaxooti ah waxaa la bilaabay sanadkii lasoo dhaafay kii ka horreeyey markii ciidamada maraykanku kasoo baxayeen afghanistan oo kaleeto afgaaniga loo isticmaalay oo kale dadka maraykanka ah inay qaxootiga afghanistanka ayaga ay damaano qaadi karaan sida loo dardargeliyo ama loo dadejiyo loo badiyo soo galootiga ama culeyska looga qaado hay-adaha dibudejinta sababtoo ah lacagtoodii iyo kharashkii ku bixi lahaa ayaa yaraaday marka dadkiyaa meesha lasoo geliyey waxaa kaloo loo isticmaalay barnaamijka qoladan la dhaho Ukraine loo isticmaalay iyagana hadda marka shalay waxaa lagu dhawaaqay in barnaamijka asaga ahaa la barlaarin doono barnaamijka marka waxaa lagu hoos tagayaa ama uu xigsanayaa wax kasoo baxay maaha Congress-ka madaxweynaha ayuu kasoo baxay oo amar madaxweyne executive order wuxuu kusoo baxay oo ah 14301 ayuu kusoo baxay laba qaybood ayuuna u kala bixi doonaa haddii alla idmo haddaba u fiirso
labada qaybood waxa waaye sanadka bilowgiisa hadda January aan ku jirnaa ilaa sanadka bishiisa 6aad waxaa loo isticmaali doonaa barnaamijka dadka qaxootiga ah oo barnaamijkoodii ama dib u dejintooda processkiisii ama talaabooyinkiisii ay dhamaadeen kaba soo qaad qof sida Soomaalida aad taqaanaan qof ayaa wuxuu joogaa Kakuma oo kale ama xeraha Dadaab oo kale ama xero kale oo meel kale ku taalo ayuu joogaa marka barnaamij ayuu wax badan ku dhex jiray falaysugu ahaa laakiin waxaa laga yaabaa in lagu aan loo haynin kharash sababtoo ah in qof dib u dejin wadankan laga siiyo kharash aad u tiro badan ayaa gala marka barnaamijka qaybtiisa koowaad taas ayaa loo isticmaali doonaa waxayna dhaqangeli doontaa haddii alla idmo 6 bilood oo ugu horeysa sanadka 6 bilood oo muxuu ahayd dambana waxaa loo isticmaali doonaa in dad gaarka ah ama shakhsiyaadka inay ayagu damaana qaadi karaan qaxootiga macluumaadkeeda marka sidaanay u shaqeyn doontaa wax yar ayaa laga soo sheegay ma badna gadaal ayaa laga soo saari doonaa taas ayaan rabaa inaan mar walba ku celiyo qof walba dadka dhana ay weydiinayo waxay leeyihiin Jamiila hadda ma qof dacwoon karaa hadda ma raadin karaa taas macluumaadkaas wali lama soo saarin midda kale waxaa la sameyn doonaa ururkaas oo la isugu keeni doono waxaana lacagtiisa ururkaas bixin doonta wasaaradda arrimaha dibadda waxaana la isugu keeni doonaa haddii alla idmo hay-adaha dib u dejinta oo tirada badan sida hay-adda la dhaho kale Church World Service oo kale sida hay-adan kale aydan la dhaho Integrated Refugee and Immigration Service iyo kuwo kaloo tiro badan oo dib u dejinta qaxootiga ka shaqeynaya muddo aad u tiro badan waxay u qaban doonaan wasaaradda arrimaha dibadda waxay markii hore u qaban jireen maxay u qaban jireen inay dadka baaritaan ku soo sameeyaan inay xaqiijiyaan in qofkan kharashka ku bixi lahaa uu diyaar yahay oo kale marka waxay talaabada koowaad oo ay sameyn doonaan hay-adahaas ururka ah oo la isku keeni doono ayaa waxaa ka mid ah verin oo macnaheedu uu yahay baaritaan qofka in la soo baaro oo maxaa laga baarayaa oo kaleeto kolley way sheegi doonaan waxyaabaha ay u isticmaali doonaan baaritaanka laakiin midda ugu muhiimsan hadda oo ay taabteen ayaa waxay tahay qofku waa inuu yahay qof aan dambiile ahayn waxay kaloo ururkan hay-adda wasaaradda arrimaha dibadda ay u qaban doonaan oo kaleeto training tababar ayay sameyn doonaan processku waa process aad u tiro badan oo dheer waxay kaloo sameyn doonaan ayadana inay ilaaliyaan oo ay monitor ku sameeyaan in dadkan wixii ay ballan qaadeen balaankii qorshihii ay dejiyeen in la raacayo qofkan in la caawinayo taasna way ka caawin doonaan marka qaybtiisa labaad barnaamijka wuxuu bilaaban doonaa midda ah dadka miday aad u xiiseenayaan bisha 6aad oo sanadka qaybtiisa koowaadna waxaa loo isticmaali doonaa dadka falaysugaha ah oo barnaamijkoodii dhammaaday oo qaxootiga inta badan ku xayirnaa sanado badan ayaa waxaa la dhihi doonaa dadkan kharash uma heenoo kale probably sidaasay dhihi doonaan dan kaale ma damaananaysaa qof hebel muxuu ahayto ma damaano qaadaysaa ama kharash ma ka bixinaysaa oo kale marka barnaamijka waxaa qaban doonta qolo la dhaho Welcome Corp kuwa la yiraahdo ayaa wasaaradda arrimaha dibadda u qaban doona talaabooyinkiisa markii idin sheegi doonaa marka website-kooda gasho website-kooda meesha waa soo galiyay wuxuu leeyihiin isu imaatin warbixin ah ay warbixinta ku dhiibi doonaan oo kale qaybta koowaad waa taas de wan ina imaatay ama aad ka qayb gashid online inta badan ku sameeyaan website-kooda information session wax la dhaho kabacdi marka inaad groupkaagi isku soo aruuriso 5 qof aad isku soo aruuriso kabacdi 5 qof marka saddexaad qaybta qodobka saddexaad ayaa wuxuu yahay waa inay background maraan oo baaritaan lagu soo sameeyo qodobka afraad ayaa wuxuu yahay training inay maraan oo dadku waa inay tababar maraan kabacdi waxaad bilaabaysaa applicationka warqadaha xareento processkooda ayaad bilaabaysaa waxaadna dejinaysaa marka welcome balan hadda sida dadka sharci Soomaalida businessyada lahoo kale markay rabaan inay lacag qaataan oo kale waxaa la isweydiiyaa oo kale business plan qorshaha businesskaagu muxuu yahay muxuu lacagtu soo saari doonaa qiyaasaysa maxay tahay seerta waxina u gudidoo kale kaasoo kaleeto oo ah soo dhow qorshe soo dhaweyn ah waa inay dejiyaan oo qoran
kabacdi waxaad saxiixaysaa waxa la yiraahdo commitment form waraaqadaha aad ku ballan qaadayso inaad qofkan damaananayso adiga qaybta 8aad oo Soomaalida maqleen ka Soomaalida waxay maqleen $2,000 then they run with it because anaga ayuuti waxaasan galnaa waana la shaqeeyaa marka lacagta waxaan lacagta intaas leemiya waa qodobka 8aad waa lacagta waa $2,275 kabacdi marka lacagta soo aruurisid you submit the application ka dhiibaysaa kabacdi markaas ayaa waxaa lagu soo sheegayaa in application-kaagii la ogolaaday in kale in dadka ay ka gudbeen background check-ga haddii qof hebel background-kiisa lagu dhagan yahay in uu muxuu ahayto uu shaqeynayay in kaleeto training-ka marka ugu yaraan waa in hal qof oo ka tirsan groupka uu maraa that's waxa barnaamijku u yahay waana intaas waa asagoo dhan oo dhammaystiran markii la soo saaro kulley qolada la dhaho welcome corp ayaa soo saari doonto oo macluumaadkiisa sharixi doonta haddii alla idmo markay soo sharaxaan waa idinla soo wadaagi doonaa laakiin intaas ayuu u kala baxaa waana soo geliyey waxa la dhaho website-kooda meesha waa soo geliyey oo waad eegi kartaa oo email-kaagaad gelin kartaa meesha saa ula socoto markay wax soo kordhaan oo kaleeto inta badanna dadka ayagaaba warka macluumaadka markay breaking news-ka dhacaan oo kale dadka ayagaa iisoo sheega marka intaas waaye barnaamijka qaybtiisa koowaad isku ururiskiisa ugu dambeyntiisa waa maxay qaybtiisa koowaad waxaa loo isticmaali doonaa dadka dibadejinta processkoodii loo dhameeyo qaxootiyada jooga ayaa loo isticmaali doonaa oo barnaamijkooda uusan waxba ka dhimanayn ayaa waxaa loo isticmaali doonaa kaasna waxaa laga shaqayn doonaa 6 bilood oo ugu horeysa sanadka qaybtiisa labaad waxay bilaaban doontaa sanadka bartamihiisa probably June wixii ka dambeeya kaas ayaa waxa waay kan dadka intiisa badan ay daneynayaan kaasna wuxuu leeyahay talaabooyin aad u tiro badan talaabooyinkan waan soo gelin doonaa application process-kana waan fiirin doonaa haddii alle idmo waxaan idin soo gelinayaa warqad aad ku samayn kartaan sign up haddii alla idmo waxaan ka dhigi doonaa zoom camal classes-aan ka dhigi doonaa haddaad rabtaan inaa idin tuso sida u shaqeeyaan of course that one inaad lacag ka bixisaan waaye is a payment waa soo gelin doonaa haddii alla idmo toddobaadyada soo socda hadba si ula wadaagaan it looks like application oo alla complicated oo dhib badan inuu yahay marka qofkii isdiiwaan geliyaa haddii alla idmo markaan cashirka gaarka aan sharaxayo waan zoomkaas ayaan idinku dari doonaa haddii alla idmo email waraaqa idin soo gelinaa kabacdi emailkiina meeshaas soo geli markaan galaaskii waxaan isku soo aadiyo macluumaadka ay soo baxaan oo galaaska ugu horeeya aan samayn doono galaasadan inta badan weekending aan samayn doonaa haddii alla idmo ama maalintii markay shaqada tahay sababtoo ah xilligan oo kaleeto hadda way igu adkaatay sabab inaa la socon cunug yara hadda dhow dhalay ilmo kaloo yara ii jooga marka habeenkii that's why life-kayga hadda uu u yaraaday inaan soo galo way adag tahay laakiin maalinkii markii la shaqeynayo kaloo ilmaha wax iga caawinaya heestoo kale markaasoo kaleeto live inaan soo galo ama video aan sameeyo way ii fududahay marka zoomka ama galaasyada aan samayn doono live-ka ah oo idinkugu sharixi doono application-ka meesha laga maro siday u shaqeyso waa idinla soo wadaagi doonaa haddii alle idmo midda kaleeto hadda kabacdi accent som saa aragteen in kala maaqaan loogada waa ka bedelay videoyaashayda loogay wadan doonaan hadda kabacdi soo qofkii dambe oo qaataa I know a lot of time dad aad u fara badan ayaa qaatay qof wixii horey u qaatay waa tageen cafis iyo masaamax waa ku tageen laakiin hadda kabacdi videoyaashayda waxay wadan doonaan loogadeeday wadan doonaan accent som haddii alla idmo marka qofkii la baxana dee waa qof muxuu taxadgudub sameeyey oo violation ayuu sameeyey intaas ayaa uga baxay immigrationka lacagtiisa waa la kordhiyey video waan sameynaa youtube-kaana gelin doonaa that video facebook anigaas ayaga uma saxiixin waxbo marka hadda kabacdi most of my videos most of my work youtube-ka geli doontaa marka haddaa rabtid inaad la socotid oo kaleeto oo aad aragtid mar walba youtube-kayga subscribe dheh haddii alla idmo halkaas waan idin soo sheegi doonaa kalaasyada application aan soo gelinaa then you sign up haddii alla idmo
kabacdi meeshaasaan kasii wadi doonaa wixii macluumaad oo soo kordhana waa idinla socodsiin doonaa so let me check the comments I don't know okay assalamu alaikum and wixii su'aala midda kale midaan rabaa inaan ka cudur daarto aan idin sheego qof walba uma jawaabi karo anigu lawyer maahi and midda kale firaaqa aan inta qof oo soo gashay channelkayga aan ugu jawaabana ma hayo marka dadka qaarkiisna su'aalo waxaa la weydiiyaa oo muxuu ahayd igelinayo waxyaabo aanan tabaruhaynin liability wax la dhahaa jiro aniga waxaan rabaa inaan dadkayga caawiyo intaan ka awoodo haddii aan la idmo at the same time ana nafteyda waa inaan daryeelo marka su'aalaha sensitive-ka oo kale inta badan kama jawaabo lawyer baad u baahan tahay wixii wax guud oo isleeyahay dadka u anfacayna halkaanaan soo geliyaa haddii aan la idmo khayr fara badan idin rajaynaa assalaamu calaykum